ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي نفسنا وحب حين كرتا مجرتو حتى يجرتنا النفط النبي بيكون جرتا أشهد أن لا إله إلا الله أذيك هرتا وحام كقريا دتك هرتو ذنا كمر خاتك عيا دتك أنا أنوش شجيا إلى حق لقو عبدا إنه سنجر إلا أذيك إلا إلهي مويانه أذيك النبي الرسول إن أتايمن هلك كمر خاتك عيا بودي صلاة النبي قهرتي سوكت كان يكون إسلامين بالد صفوان بن أمية لأن مددن بالنبي الله جوجو أكثر سنة سقوا مشركة والنبي قال صور وين يي وعمر كان صلاة الله تكنا ينا مكان لقو تكنا ينا انتو النبي قال هراي أبحو أيو صفوان بن أمية قدال أبحو النبي قال يا صحابته سدوا عبادة سنة ينبو فيرين يي كيفية النبي قال تكنا يكون إسلامين وعوكو إسلام ونكاب بدي الشيء ده سن مدي النبي محمد مركو أركيبه كو إسلام دين إسلام ده يقصبها النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفلي قفك إله إلا كل كيس الرجينية آخرنا كو حساب تميا عدا نولش هذا معلم هذا قد يغني سوى نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه نبي محمد عد إساق آنا نهين أتقض يتا نولش هذا قد كردي أقو مدينة المنور نبي يمدي wuxuu arkay yahuudi magaalada madiina kula noolayd oo caashuura soomaysa markaa buu nabigu ku yiri maalinkan ay soomayaan waa maxay waa maalinkii ilaahay nabi Muuse calayhi salaam uu badbaadiyay ee fircoonna laga halaagay weeyaan markaa Muuse ayaa soomay shukran li rabbihi buu u soomay reer bani Israa'iilna waa cibaadadooda weeyaan oo way soomaan markaa buu nabigu saxaabadiisii ku yiri anaga nabi Muuse uga xaq leh sooma buu rasuulku yiri waa tobanka caashuura weeyaan markay saxaabadu ay soomeen ayuu nabigu yiri kal dambe hadii ilaahay i gaarsiiyana taasuuca sagaalaadka ayaan ku darayaa oo maxaan ugu darayaa sagaalaadka yahuuda ayaan khilaafaya weeyaan xaqi cibaadada ayuu nabigu yahuuda ku khilaafay maanta mujtamaca muslimiinta badana adduunyada ku noolna iska daa cibaade bal dhaqankiiba maanta ay ku dayanayaan maqduubi calayhim iyo wala daalin bay ku dayanayaan salaada markaa tukanaysidna ayuhal muslim waxaad leedahay ilaahu aniga dariiqa waxaad marinaysaa kuwii dushooda aad u nicmaysa dariiqooga i mari kuwii loo nicmeeyey waa dadkii ilaahay doortay alambiyaa calayhim assalaam waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin ee ilaahu dadkaad u cadhootay iyo kuwii baadiyoobee dariiqa xagka ka leexday ilaahu jidkooga aniga hay marin baad ku ducaysanaysaa laakiin mujtamaca muslimiinta maanta dhaqankooga eeg xagga salaada markay noqoto cibaado markay noqotona masaajidka dhexdeeda markaa sunno ama salaad farada tukanayno waxaan ku qowlaynaa ilaahu dariiqa mustaqiimka ay mari dariiqii aad addoomaha aad ugu nicmaysay aad marisay i mari akhlaaq markay noqoto iyo dhaqanna maanta mujtamaceennu waxay ku dayanayaan dadkii ilaahay u cadhooday iyo dadkii baadiyoobay baan dhaqankooga maanta aan qaadanaynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu khilaafay cibaadadii buu ku khilaafay cibaadadii innaguna maanta mujtamaca muslimka meeshay doonaanba ha joogaane caadadii bay maanta kaga dayanayaan yahuud iyo nasaara marka muslim ayuhal muslim ciddaad ku dayanaysaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci baa nebigu yidhi haddii nebi muuse adduunyada maanta uu joogi lahaa shareecadda isaga loo soo dhiibay ma raaceene tayda unbuu raaci lahaa buu rasuulku yidhi laanna miithaaq baa ilaahay ka qaaday ambiyada dhammaan jamiica alambiya nebi kastoo la soo diray risaalad marka loo soo dhiibaayo waxaa ballan laga qaaday adoo risaaladaa haysta haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado inaad isaga rumaynood raaci ballan ii qaad baa ilaahay yidhi markaasaa nebi walba ilaahay hortii uu ka marqaaday uu ka markhaati kacay haddii isagoo adduunka jooga nebi maxamed uu yimaado shareecadda la yimaado islaamka inuu nebi walba nebi maxamed raacayo waa ballan nebi walba ilaahay uu la galo ka qaaday weeyaan nebiyadii ay ballan qaadeen inay raacayaan ay ilaahay hortii ka ballan qaadeen inay ku dayanayaan ayaa inakana ilaahay nooga dhiga imaam ilaahay nooga dhiga qudwo inaan ku dayanno falidaalika natacallam waa inaan barannaa noloshii nebigeena calayhi salaatu wassalaam dulqaadkiisu sidee buu ahaa sidee nebigeennu ummadda ugu dulqaadanayay
حق الدراسة ده مركز نقطة التعليم تا مساجد كيسيبوا نين عربية عورتي سينتو الله صوب حيبو كوك هذه صحابة نكي ويكو يا عين ولكن النبي وكرد عليه الصلاة والسلام وحيري دعوه ورداية بوري ورداية داية كاد ده حكو كلا جوجنين بوري داية هلقو كوك هذه أرض إنكو بيك بدن كشوا أبو النبي يقول كشوا مساجد كنا بتاح بوسكاها جقع السجيم النبي يقول يا رنكي آدابتي مسكيت كوش يا جاي هي كنا أوتل ما موحو كيري أرض ماشو كوك هذه بيك بدن كشوا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنبي يقول إن هذا مدى حق أرد برسان باليني كانه إن هذا مدى حق أتكو أتكيسان مركادو قد بينيسان أدوية الليني ما كان برسول كيري إسقينا وأوي يروحوا شيء مساجد أهمية دولية وما الله دس إله إلا جو عبده إن صلاة الله جو تكذو إن قرآن الله جو أخرستو إن دين الله جو برتو مركز وشيء يري ومساجد أقل كان إله يبقى إسكله ومال طاهر ويان لأن مركز صحابي النبي أمان جري مركز دمبه معلم بوها كيف يداس النبي قمضى وحبراي صلى الله عليه وسلم خطبة ما برقصة خطبة دينية نين عربية استحتاج دحدي أويري رجل غريب بانهي جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه نين غريب أيانه دين الإسلام كعصب وأيمد دين دي الإسلام كإنه وحكا ويديو خطبة دي النبي خطبة دي الجمعة انتو النبي جوجيي أيو كدا دعونيكي هل جيبوا وقلت جاي كرسي جيب الله طبق هذا النبي عليه الصلاة والسلام مسألة اللي مسألة دور بإنه النبي ويدي مركو ويدي وقد ما يستري أيو النبي صون نقدو خطبة دي النبي قد ما يستري ومعلم هذا المعلم تهينا مثل كاقوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مثل الأعلى عدة قد ينسوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حداد قائد أمداد تهينا وفير صدقات النبي محمد عليه الصلاة والسلام نرير باديو أعرابية أي النبي جنو صحابة دي سهريرها كالسعدان قدال انتو كجي مدي أيو عمامة دي النبي قوي النبي هنقولي كقبتي مركز وليبه هذا الأذى كويري حولها إلهي أكت هذا أودجي أدقنا ملهد أوجا عبد المطلب نم مله نصيبه كيري انتو النبي قصليبه كويري سي يقول بقولها لا دوجي لا يسجن إلا سي حاكم هذا عد كنت أمت ثلاثة دقات هيسد أما مقالة حكم أما وطن حكم أما تولو حكم أما تلرر هي عدك آت كنت ينسوا نبي محمد ومثل الأعلى دينا والبا وحاو نبي بشريات دوية مثالك أسرية لقود ديناي إن آت كنت بالليبان تمو ياني كنت بخسار ميسد أبدا أبدا لماذا؟ لأن إلهي بايدي وإن تطيعوه تهتدوا هذا النبي محمد أذرى عذان وتكون ضيتان وأذهن انتين إلهي تبارك وتعالى صحابة النكا إني قعن ولا تقام بيكو هميين ولكن النبي يقول دولة عدية انتو قصلي صحابة عرضي بكبا بإنيا مركب النبي يقول ساي انتو يقبوا قصلوا وحكو يدي وروحوا دون السيبو النبي يقول كحيو بيت المال كجيو سيبو يدي غنيمة دي قال هذا لقى سوق هذا النبي يقول صدا أو قيبيني كان انتاسية كان انتاسية كان انتاسية هنا عربي ورير بادية أيا صحابة استحتاجوا قيليو يدي والله قيبت الله قيبيي لقوا منع عدالة فلن إلهي درتين الله ما بحبه يدي هذا القاعدة اللي يقول لي هوايو والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قالوا فرسوا دلقات النبي قال إياك سيد النبي قال مدى اسكو قوة إياك قسمدا لقيبي لقوا مع عدالة سمين إلهي درتين لو قمت جيدو هذا الكانين كان يقول يا ماها شخص كلا والنبي محمد مرقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا مغلاي مرقى النبي أوتق عليه الصلاة والسلام مرقى النبي أوشاقي مرقى وجه النبي أيا مركب الدور صبوس بدلي مرقى النبي يري هذا إلهي نبي محمد عدالة حقه ذا كئما أيا كلو عدالة سمين بالنبي يري سو قبتو أنك حيد النبي مؤرن سبر بردق ماذا الزمن كان أمدا ثلاثة ده حيس ودن كيدوني هجوجان هي قائد الأعظم قائد كي وينايا أمده هجان كي إلهين وقول ديبي هل كي كلا جوجان بالسكوك
saasuu eegay nebigu sal alla alay wasalam markaasuu yidhi ilaahay nebi maxamed hadday iyaka cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhibo uu sabray buu rasuulku yidhi laanna qur-aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur-aankaa laga bartaa qofka muuminka waxaa xakamaynaya waa qur-aanka weeyaan haddaad cadhooto qur-aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur-aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa guracanto qur-aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada lianna qur'aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaalad dhammaystiran baa qur-aanka ku dhammaystiran waa maxkamad cadaalad oo dhammaystiran markaa buu nebigu uhi walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas-uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya ka cibaadadiisu naaqis ka tahay ka xaqa ilaahay ilaalinaya ka xaqa bini aadanka weli aan dhammaystirin ka akhlaaqda wanaagsanne ka akhlaaqdiisu ay liidato ka diinta ku fiican ka diinta weli ku dhaqankayga ku fiicnayn intaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu isku waday ra'iisu lmunaafiqiin cabdullaahi bnu ubaya bnu salool inankiisii baa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam markii laga soo noqday ghaswat alaxzaab markaasuu yidhi yaa rasuula allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay waxaan ka baqayaa aabbahay nin muslima intuu dilo ninkaa muslimkaee saxaabiga aabbahay dilay inay anigana gacan igaga siibato sidaa naar ku galaan ka baqayaa aabbahay kurkiisa anigaa soo goynoo kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi aabbihiina waa ra'iisu lmunaafiqiin weeyaan markaa buu nebigu yidhi may kugu fasaxi maayo buu ka yidhi waayo la odhan maayo saxaabi baa munaafiq dila la odhan maayo lagu sheekayn maaye waxaa lagu sheekayn saxaabadii moxamed baa islaynayso kurka iska jaraysa adigana waa aabbaha suxbaddiisa wanaaji buu ka yidhi u samafal annagana sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doona buu rasuulku ku yidhi muddo yar kadib ninkaa uu dhiman doonaa ra'iisulmunaafiqiin deedna markuu dhinto saxaabigii uu dhalay baa nebiga u iman doona wiilkiisa cabdullaahi baa iman doona oo nebiga ku odhan doona iigu tuko markaa cumar bnu khadaab baa ku odhan doona yaa rasuulallah munaafiqa ha ku tukane daac ila salaata aljanaasaha qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynayo weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi cumar waan ku tukaniye iska daa buu ka yidhi markaa buu yidhi yaa rasuula allah ma ninka munaafiqnimadiisu ay caddahay qur-aankuna uu fadeexadeeyey maad ku tukanaysaa markaa buu yidhi yaa cumar aniga khiyaar baa ilaahay ii siiyo waa kii yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaar baa ilaahay aniga ii siiyo waa ka ilaahay igu leh haddaad doonta u dembi dhaaf dalab oo u duceey weeyaan haddaad doontana haba u ducayn haddaad kuwaa 70 jeer ilaahay aad dembi dhaaf u weydiisana loo dembi dhaafi maayo baa laygu yidhiye khiyaar baa laysiiyo khiyaarkaa horreeye han ku tukadee cumarow iska kaydaa buu nebigu ku yidhi nebigu waa og yahay ninkaa salaadda nebi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa og yahay laakiin nebigu ayuu ilaalinayaa wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nebiga ag taagan ee diinta islaamka difaaceega dhiiggiisa ula diyaaray inuu ku bixiyo kaabuu nebigu qalbigiisa dhowrayaa markaa nebigu ummaddiisa uu isku wadaa uu ha ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana markaasuu yidhi yaa rasuula allah qabrigiisana noo raaco balkaalayo haddana halkaana nala dul joogso lacalla laga yaabaa duljooggaagaa ilaahay inuugu naxariista aabbahaye markaasuu raacay rasuulku cumar binu khadaab baa nebiga gacanta hor dhigoo yidhi yaa rasuula allah nimanka munaafiqiinta qabuurooga ha tegina ka joog haddaba markaa buu nebigu gacantii cumar iska qaado wuxuu yidhi cumarow khiyaar baa aniga ilaahay ii siiye khiyaarka ha iga qaadine iska kaydaa buu nebigu ka yidhi cumarow uu tegey qabrigiina nebigu waa kor taagay waa u duceeyey uu ka soo noqday soo noqodku soo noqdaa nebiga qur-aanka ku soo degaaya oo la leeyahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi innahum kafaruu biاllaahi wa birasuulihi
وماتوا وهم فاسقون باللغو يدي ما أنت وحي كدن بيسبا نبي قال لغو يدي كوا منافقين تا صلاتنا كمدو كان كرتد وأمدو عين كرتد قبورتو دنا هسكر تاقي با نبي قال لغو يدي آيات كقرآن كي صوت دقي يا وحا اسوافقي تلبحين عمر بن الخطاب وسوجي دي مالك انت كدن بيسبا عمر بن الخطاب مركز تلد ونبي صحابه شورada uu tala galinayo talada Umar ibn Khattab uu dhiibta nabigu si gaar ah iskaga eegi jiray baa la yiri limaada imam Suyuti rahimahullah kitaabu taariikh al-khulafa wuxuu ku sheegay 15 tala bixin oo Umar uu ummadda u soo jeediyay tala ummadeed oo nabi Maxamed uu dhiibtay iyo quraanka iswaafaqay baa lagu yiri xijaabka kamida maqaam Ibrahim baa kamida آيات منافقين تكور رمايا آيات كمدة شن يتوبان تلا أو عمر نبي أسو جديي يا قرآن كاس وافقي بالليدي أنت كدم بيساعدو عمر تلا ديبتو نبي قو تلا عمر سجار ويش وجوه ينجري بالليدي مركا النبي قالوا عليه الصلاة والسلام سداس النبي قو مديس اسكو وضي حق عشرة ومحي سيدين نبي قو ريري سولد دغماجي إلا شخص متكامل وها نبي محمد إلهي بدو وإنك لا على خلق عظيم جانب كليا كمسفوب حق عبادة ومثل حق أخلاق ومثل حق ماملك ومثل حق شجاعة ومثل حق نحريس ومثل حق تربية أولاد ومثل حق ماركتان الدقس النمد ومثل حق الزهد ومثل حق معاشرة الرئاسة صدو الله ومثل مثل ومعي وتصالح عائشة رضي الله عنها ولا ويديي أقل الذي سنبي مرقو جوغا محوقا مجري نوشك باللقو يدي مرقا سيتري المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعيتري أقل كمرقو نبي جوغا وحوقا مجري مينيشيغا كابتا إساقا كاقو ديبو نبي اسكتو لنجري مرضا كدل دلا عانتين نبي كركرين جري نفكي سنة مالان جري أقل كدحلي ده أديك وحنو بحنا النبي جوا نو قبل جريت إسقى نو أديك جري أديك لكن صلاة ده هذي قادو نبي جو صلاة وبحي عليه الصلاة والسلام حقوق ده الذي سووا لالنجري بل إسقى نو شيء جو يري نفقة درهم كأذلة هاي دين كيسات كنا نفقين يسو هي درهم كمارك تاني أدون أتكو حرين يسو iyo dirhamka maaragtaanay miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxa ilaahay agtiisa ajar badan buu nabigu yiri ka aad reerkaaga ku nafaqaynaysa ajar badan buu rasuulku yiri ka reerkaaga aad siinaysid qadar alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerihiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka Caaisha وحلا عنما يلان عايشة ما يبي أورنجرتي مرقاب أورنجري واسكا صومنا هسكده حفص وتجي جري وحلا عنما يلان ساكر ما يحمى يلان رسول الله وصومنا هسكده بأورنجري أنت هدي الله صيي عجب سنة وعون جري هدي عجب قلي ويدين النبي ومعي بيننا وكتج جري وحي عجبية وحي الله سمايو هدي شيء أو عجبية ما أورنين هدي شيء الله سماينا ما أورنين محاسدا نص سمايسان شيء أن لو سمينا ما أورنين محاسا أو سمين ويدين ما دقال لمين ما عرونين هل مر بيدو مرقيسو نبي أي تسكوي مادين يدادين مو نبي قبيل نصيو مصاريف واتن دولة الإسلام كل قالة يالتي وكهجرود النبي قدو مركيسي جبريل باوي مدو وحا لغو يدي reerahaagi adduunya soo gasho adduunya ka fikireen ka dheerow baa lagu yidhi dhowr iyo 20 cisho nabigu miskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiina war waxa galay la leeyahay nabigu xaasaskiisii uu furay umar baa socday inantiisii xafsu u tagay aaba nabigu muu ku furay ma yana ma furin maxaad samayseen wallaahi waxaan sameeyno dambi weyn annagu ma garanayne waan isku imanno waxaan soo hadal qaadno nidhi waatan dawladda islaamku dhaqaale yeelatee مو نبيكم مصاريف النقر هديتو مصاريف ربيلا
abubakar baa socday inantiisa caaisha u tegey maal lagu furay maylayma furin aabbo maxaa dhacay nebigu nigay jiroodaan maqalle waxay tidhi nebi allow aabbo dembi kale ma samayne waxaan isnidhi keliya haddaan haweenkii nebiga nahay dowladdii islaamku waa ta dhaqaalo yeelatee xoogaha masaarifa nebigu meel haynii saaro ma intaasunba haa waa intaa deedna markaasaa nebiga aayadahan ku yaalla suurat alaxzaab aayaatu takhyiir ee kala doorashada ee la leeyahay nebi maxamed ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta aayadaha ka warramaya kala doorashada kala doorbidashada ayaa marka nebigeenna ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxau nebigu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu nebigu ka bilaabay waa tuma almu'miniin caaisha radia allaahu canha taasuu nebigu reerihiisa ugu jeclaa camar binu caas baa weydiiyey nebiga su-aashaas camar binu caas baa saxaabada ku odhan jiray saxaabada nebi maxamed anuu iigu jecel yahay ku salliya rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa lagu yihi war ka daa may anuu iigu jecel yahay war ka daa may waan weydiin salaaddii markii laga baxay buu camar istaagay wuxu uhi yaa rasuula allah dadka ayaad ugu jeceshahay ii sheeg markaasuu nebigu yihi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi innaka ma dhici kartaa ninku inuu ragga horteeda ku yidhahdo waana dumarkayga islaantaasaan ugu jecelahay waad ka xishoon laakiin ceeb maaha nebigu uu sheegay mujtamacuu ka hor sheego wuxuu yidhi dadka waxaan ugu jecelahay caaisha markaasuu yidhi maya dumarkaaga maaha ragga markaasuu yidhi aabbaheed waa kuma abubakar markaasuu haddana markaasuu yidhi cumar marka camar binu caas saxaabadiiba eego waan iska aamusay buu yidhi maxaad u aamustaa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqay inuu nebigu iga dhigo koogu dambeeyo buu yidhi marka aamuskaa la ii qaatay buu yidhi uu iska aamusay markaa camar lidaalika nebigu caaishuu xaasaskiisa ugu jeclaa mas'aladdaana kala doorashada nebigu waxau ka bilaabay cidduu xaasaskiisa ugu jeclaa wuxuu yidhi caaisha soo fadhiiso aayadahan qur-aankaa dusheeda ku soo degay waa kala doorbidasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca kalena adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tale haddaan ka bixiyana waxaa ila quman inaad aabbaha abibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaabay caaisha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbaha iyo hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sida aniga aad ii weydiisay soo xaasaskaagana u weydiin maysid markaa buu yidhi haa iyakana waa ku socdaa adaan kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mowqifkayga aan doortay adiga ha iiga sheegina iyakana weydii bay ku tidhi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo maa markaa buu nebigu intuu qoslay buu ku yidhi wallaahi hadday ayaku i weydiiyaanay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna ka qarin maaya buu rasuulku yidhi yacni sidan adiga wanaag iyo janno kuula rabaan iyakana ula rabaa janno weeyaan waana imtixaan arrintu waa ikhtibaar weeyaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadoo dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta waa khiyaar cajiiba waa imtixaan weeyaan ikhtibaar markaa buu nebigu leeyahay caaisha hadday iyakuna ii weydiiyaanay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay nebi allow way og yihiin inuu nebigu caaisha uu jeclaa iyada ka soo bilaabayo aniguna ka qarin maaye wallahi waan u sheegi buu ka yidhi cishra saasuu nebigu dumarkiisa ula dhaqmaayey ghaswatu khaybar markii dagaalka lagu qaadee lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nebiga u dooreen asxaabtu u doorbideen safiyata bintu xuyey radia allaahu canha umu almu'miniin bay yidhahdeen nebi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yidhahdeen way qurux badan tahee markaa buu nebigu yihi wallahi waad ii garateen buu yidhi tii ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caaishuu nebigu u yeedhay xafsa u yidhi caaisha iyo xafsa kaalaya gabadhana laysiiye dadkii lasoo qafaashay baa layga soo dhex doortee caroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordo ii diyaar garaya reerihiisa nebigu ma dhaqaalo ku wada mise akhlaaq badii sheega ya ma dhici karta waa waxaad
إنك الزمن كنا ومستحيل إنه نكو لابد يصدم روق وكيد هذا نا قبل يربى ليسيون قرصة بالإيسو الديارية وأذكر تاي سوما وحو النبي محمد ريريه سكون معمولة وأخلاق ويان وخلق العق أمد الله قمام معمولة كرو رير العق لو قمد دقيق كرو ريرها وحال لو دقا ودقا كوناكسن ويان لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلوا الأعلى بدن والبها ويقادين هبين كيبي الدياريين صلاة العشاء مركي قادا صحابة النبي السوق قلبيين markii aqalkii loo dhawaaday buu nabigu saxaabadii ku yiri war reerkaygii baan u tagay iga hadha buu ku yiri markaas inakana ma sha Allah de aroosada zamankeena ilaahay hayno dambi dhaafa bas bal arooska nabi maxamed dibyaridiisa eega aroosadiina labadana u diyaarinaysa Xafsa iyo Aisha isagiina salaadii cishaa markuu saxaabada soo tujiyay hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhawaadayna iyakii buu la kaftamo wuxuu ku yiri warda aroos baan reerkaygii baan u tagay maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yiri dadna markaas ay qosleen xishoodeen ka hadheen Aisha iyo Xafsa ka soo baxay marka aqalkii markii nabiga maqleen uu soo socdo markaas uu haye bal warama maxaad aragteen Aisha tiri de maxaan aragnay yahuudiyad baan aragnay orada u tag bay ku yiraahdeen way qurux badnayd baa la yiraahdo way ka wada qurux badnayd marka waliba Xafsa hadalla adag ku sii hadashay markaa buu nabigu ka daba hadlo Xafsa ittaqi Allah ilaahay ka yaab ma caroon ma dagaalamin ma qaylin bal siduu nabigu la dhaqmay reerihiisa wuxuu Xafsa Aisha gabadha waa muslimad way islaamtay ilaahay ka baqa markaas ay leeyihiin waa yahuudiyada u tag bay ku yiraahdeen markaa buu nabigu soo galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii arooska ahaa ilaa maalintiina saxaabadu nabigu la joogaa dumarka marka u yimaado marka gabadha way u weheliyaan oo u sheekeeyaan maalin maalmaha kamida uu nabigu u soo galay Safiya iyadoo ooyeysa marka uu nabigu ku yiri Safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tiri yaa rasuulallah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa teeyatay Aisha iyo Xafsa oo maxay leeyihiin de waxay igu yiraahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay te marka uu nabigu ku yiri ayakuna maxay leeyihiin daanakuna gabdha carabiyada gabdha carab baana عربيات بانه أنا قاعد أقول يهوديات باتها مركب النبي وكوري ده هذا كان نصب في عنه هذه حاجة نصب كلا إيجا هذا أبها والنبي هارون بن نبي هارون بيكو أبترسن يسيب الليل أبها والنبي هذا يركا والنبي عيسى نبي موسى زوج شاقو والنبي محمد هذا كلا عند رئيس بوكيري أمريكا كوي مادان اسكع علي سأقول جواب مالين دمو نبي قوي مدى صفية بنت حيي وآدو فرحسن بل ورن وعيتني ما أنت الدمر كاقتان كل جاي والله يا بيتي وما حد قلت لي ده كلمة ده يقول أورنجرين بإلي ما دين يهودية مركز أنكود إن يهودية دم بعد يقول هاي سنة أنا جا أبهاي والنبي هارون عليه السلام ما كوابت الصدع هذا كين والنبي الله موسى عليه السلام وكليم الله وذا يقول والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بل مدينا إنتاسو النبي كل السطي هل كان صودي كان كوري تري شيء كان كوري تري مركز أفكار قبضة دينه وإيجي عين بيتري ما أنت هل كان هم ذاك ود بالنبي كوري صادو مركز كعلي يعني مع عشرة حياة العشرة بلك نبي صودو دو مركز أوكل بدبادين ياك وانرون وحو نبي كو هاللايو قفك النصب كيس وحو قيمة كوي لنا يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هدي إياك أي قبل عربيد يهين وحفصنا عمر أودلي عائشة وأبو بكر أودلي هذا كان النبي هارون باتكو أبتر ستا هذا كان والنبي موسى وكليم الله هدي نبي محمد وني وضق إياك وقبنا ده هذا كان النبي محمد واكو قبابو كيد النبي مركا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام السجاي نو قدوة مركا نبي جينا هذا نقول دون إنه ليبان دون إنه عز دون إنه شرف دون إنه وين النبي جينا الرعنا حد أنت أمد دقن كي نبي محمد أن كسي فوقانه وعاد وقعت إلى هين وين نقف فوقانا يا يوقو غزوة أحد أيا درس باين دروس با كف أيا قدو من دروس ابن قيم الجوزي رحمه الله في زاد المعاد بك رمي انت مسائل وكسو صاري شيخاسي في غزوة أحد
hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalurumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa u dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysanood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaaladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qola waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiinta ee raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulwaliid oo maalintaa aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahee fardoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo ka keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawaca waa gaadhay 70 saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelya ilaahay ummadda siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartii waa ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu layucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi intaad adigu ummaddaada dhex joogtana cadaabi mayna baa ilaahay yidhi inta ummaddaadu dembidhaaf ilaahay ay weyddiisanayaan ee ilaahay ay u soo noqonayaanna cadaabi mayna baa ilaahay yidhi marka amar nebi maxamed ka soo fulay oo jamaacadda qayb ka mida ay jebiyeen ayaa muslimiinta maalintaa jab ku soo gaadhay oo 70 nin oo saxaabadu ku shahiiday nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday ma ahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxaa qisaddaa inoogu filan oon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow wa atiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin bal inta axkaami aayaddaa ku jirta u fiirsada wa atiicu allaha warasuulahu ilaahay adeeca baa la yidhi oo rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu ininka dhexdiinna baa ilaahay yidhi ha murmina xaqa laguma marmo xaqu waa cad yahay waa la raacaa xaqa haddaad tanaasac mulkiga haddaad isku qabsataan iyo maamulka haddaad talada ummadda isku qabsataan kanaa sax iyo kanaa qalada haddaad isku qabsataan oo muslimiinta dhexdooda uu ka dhaco maram ku salaysan baatil oo xaq aanan ahayn hadduu dhexdooda uu ka dhaco fatafshaluu baa ilahay yidhi waad fashilmaysaan fashal hadduu yimaadana maxaa ka dhacaya watadhaba riixukum quwaddiinni iyo midnimadiinni baa tegaysa baa ilaahay yidhi waa lagu soo celiyoo la yidhi haddana wa atiicu allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa adeeca baa lagu yidhi in kuntum mu'miniin haddii aad tihiin kuwa iimaan le baa ilaahay yidhi marka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshaa uu ummadda ula yimiday baa la rabaa inaan ku dayanno xayaata alislaam haddaad nolosha islaamka aad raaci weydid waxaad raacaysaa xayaata xayawaaniya xayaatada la yidhaahdo marka shayga ugu muhiimsani nebigeenna kaga dayanaynaa waa maxay bay culimmadu yidhahdeen
وقابك النبي جاء إنه أمده الرسالة ده وقارسينا تبليغ الرسالة أكبر معجزة واتاس سيدي النبي أمده وتربية دي سيدي النبي أمده الرسالة ده وقارسيي كيفية النبي محمد أمده الرسالة ده وقارسيي كيفية دي بهاي وقت جاي نقول ديران لكن النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام هنا كده ينو ونولشي سام برنو ونبتكينا برنو ونكده قنو ودين تا إلهي نسي نولشين أي كم وقتو دال بلوب بهاي مركز دال كاس علماء كلية مها مسؤولية وحي سارن تاعي نبي يقول دين تا إن أمد اللقارسيو دين لبرو حلك علماء كلية نبي يقول مسارين مسلم كستحلك نبي يقول كوري جيو صاري بلغوا عني ولو آية بلغوا وأمر عني وتشريف يا تكريم ولو آية وتخفيف لقوه خفيفي لقوه فضيدي رسالة دي ده إن شاء الله ده هذا إن ذلك الدين تأوض كعنه وهدي النبي جينا أن رعنه كده ينو ما ود النيوتين إن شاء الله إن شاء الله ده هذا إن شاء الله ده هذا سيفي عنو تاقا قعنت الله هنا قبله دم بيجينا الله هداف